والله حالته gabadhaydu alxamdulillaah ma ka way fiicantahay aad iyo aad bay wanaagsantahay saldhiga waxay ku jirtaa jeelkay ku jirtaa maalinada dhawada qalalaasa magaalada ku dhacay ayaa la xiray waxaan gurigaygaanu iska raacnay suuqaanu tagnay inama yaryar baanu soo kaxaynay waanu soo xaraysanay markaa tigba halayna bajaaj baanu soo raacnay wayna qaadi weyday ayada waxaan idhi soo lugay inamadan kaxaynayaaye inanta way soo lugaynaysay isla daqiiqada ka soo dhaqaaqayba waa la qabtay way xidhan tahay wax allaala waxay ku xidhan tahay anigu war uma hayo adiga maxaa laguu sheegay oo gabadhaada lagu soo eedeeyey aniga waxa la ii sheegay oo lagu soo adeeyay dad siitamayo habeenkii xabaday iyo shiid iyo waxa magaalada ka dhacay waxaa sayr ku jirtaa laygu yidhi malay ku jirina waxa aanay ila socotay oo carruur bay ila soo kaxaysay bajaajta ila soo saartay markaa way lugaynaysay soo raac baan ku yidhi adigu inamadan kaxaynaya adigu si kala soo raac baan ku yidhi markii aan tagay saldhigii dhexe inantaydu maxay u xidhantay baan ku yidhi waxaa laygu yidhi inantaas waxay u xidhan tahay garan mayno waxaan tagay qaybtii maxay u xidhantay ma garanayno waxaan tagay jeelkii weynaa maxay u xidhan tahay ma garanayno wallaahi inaad argacaliyo intaa waxaan kuu dhaafiyoon kudha inantaasu bartaasay u xidhantay ma garanayo adiga xaggee joogtay markii la xidhayay aniga waan la socday markii la xidhayo inantayda gurigaanu ka yaacay xabadii baanu ku yaacay carruurtii yareeda suuqa wax ka dhiganaysay maxaan ku idhaahdaye bareefadada oo suuqii nagaga maqan suuqana waanu ka fognahay aanu labadayaduba doonna marka hadda ilaa intay xidhan tahay maanta habeenka caawa u 11 gabadhaada imise jir waaye ma dugsiyay dhiganaysay bal nooga waran gabadhaydu 18 sanay jirtaa 18 sano waxaan ku leeyahay markaa waa ardayda heer jaamacadeeda waxaan ku yidhi wax kaloo intaa dhaafsiisanaya anigu xidhantay ma garanayo marka gabadhaada ilaa hadda maxkamad ma la horgeeyey maya inadeer waxay ku xidhantayna war uma hayo maxkamadna looma geyn laakiin maanta qaar baa igu yidhi haddii ilaahay qadaro carruurtii hadda wax shiidsiidaysay ee dagaalka ridaysay oo la xidhxidhay ayaa lala soo daynaya ilaa birina sug bay igu yidhaahday marka rajadaadu maxay tahay rajadaydu alxamdulilah rabbilcaalamiin qof muslim baan ahay dee waxaan sugaya in ilaahay inantayda nabadqab iigu soo daayo ayadoo waxba ku dhicin oo nabad qabta in ilaahay ii soo daayo caafimaad anigiyo inantayda inaan isku aragnabaan ilaahay ka baryaya ka sokow inaad xarunta booliska aaday oo aad weydiisay gabadhaada waxa lagu xiray maxaa kale oo tallaabo ah oo aad qaaday ama aad samaysay waxba ma samayn oo meela inantaydi mooyaane iyo maxaa lagu haystaa iyo yaa xidhay iyo yaa u xidhantay mooyaane wax tallaabo oo xunaan sameeyana ma jirto wax tallaabo oo xunaan samaynayaana ma jirto gabadhaada marka laga soo tago dad kale oo aad taqaano ama qaraabada oo iyaguna xidhan ma jiraan dad fara badan baa xidhan habla inantaydu la xidhantay inamay la xidhan tahay oo dee reer burca ah oo maanta dee meesha qalalaasu ka dhacay wada joogay waa la wada xidhay dee yacni dawladoodu bay malaa u xidhan yihiin anigu wax kale ma garanayo hadda sidee rabtaa hadda waxaan rabaa dee in ilaahay inantaydii nabadqab iigu soo daayo o lay soo daayo